farta dhexe waxaan aragnaa dad badan oo marka ay aroodaan farta dhexe fiiqaya gaar ahaan reer galbeedka tilmaantan ama calaamadan macnaheedu ma aha sida ay dadku u adeegsadaan waxay leedahay macno kale oo dib uga laabanaya qiso hore oo dhacday sanadkii markuu ahaa 1415 milaadiga oo uu dagaal dhaxmaray ciidamada Ingiriiska iyo Faransiiska dagaalkii Battle of Agincourt bilowgii dagaalka waxa ku gacansareeyay ciidamadii Faransiiska waxay lahaayeen tiro badan oo ciidankii Ingiriiska ah maxaabiisna way qabsadeen maxaabiista Ingiriiska nolosha lagu qabtay dhamaan waxa laga jiray farta dhexe si ay markaa u ridi waayaan falaaraha ama ay ula gafaan bartilmaameedka balse taasi kama hor istaagin ciidamadii Ingiriiska inay dagaalamaan oo natiijadii dagaalka si degdeg ah ayay isu bedeshay ciidamadii Faransiiskuna jab hoogan ayaa soo gaaray Ingiriisku waxay farta dhexe ku fiiqi jireen Faransiiska si ay u muujiyaan in farahooda dhexe ay fiican yihiin oo ay falaaraha ku ridi karaan calaamadan ay isticmaalaan gaalada intooda badan waxay gudbiyaan fariimo qaar badanna waxa bale maasoolinta iyo kuwa shaydaanka aabuda